celinaya aad baan ugu mahad celinaya mahad kadib runtii ururka maam ardayda midowga ardayda reer Muntada wax badan ayay hore u soo qabteen bilii hadda u dambeeyana wax badan bay qabteen inta iskuulka xirnaa ee cagaaga ah aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii shaacinta maamulka ku-xigeenka cusub ee iskuulka mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan ka soo qaybgalayaasha waa u mahad celinayaa waxaan rabaa hal kelmada oo dardaara inaan idhaahdo sidaan ognahay degmadeenna Burtinle wax badan oo horumaraa ka socda oo hadday tahay isku tashiya oo bulshadu qabsanayso waxaasi waxay ku sii jiri karaan oo amayna ku anfici karaan markaan ilaalino da'yarteena soo koraysa dhaqankooda aan ilaalino iyo akhlaaqdooda kuna ilaalino akhlaaqda islaamka aan ogaanana xilliga ay maqan yihiin iyo xilliga guriga imaanayaan aniga xifsi ahaan waxaan isleeyahay Puntland oo dhan maadaama aan ogsoonahay laba kaalin oo lambar 1 iyo lambar 2 laba inuu ka galay oo Puntland iyo Puntland ba uu keenay magac dheer inaan boorino la shaqeyno isla mar ahaantaana aanu u noqono dad waxbarashada u heliya waa ogsoonahay Soomaaliya 28 sano burbursan tahay waxa maanta lagu kala baxay waa dadkii wax barteen waxbarashadii hore u socota in la raacayada oo qofkii xil la siinayay iyo qofkii meel loo dhiibiyo xilka lagu fiiriyo oo halkaas bay waxbarashadii maraysaa haddaan mahadnaqa dib ugu noqdo waxaan rabaa inaan halkan ka xuso Xuseen Axmed Cabdille oo ah run ahaantii shirkadda Amal ana Amtel oo iyaduna shirkad isgaarsiinta oo Amal ka tirsan oo meeshaan qayb libaax ka qaatay dabcan maanta waxa ku socdaan waa dhaqaale waxaan isleenahay 80% in hawshan xafladan hirgasho waxa ka qayb qaadatay Amal Group waxaana jeclahay in ay idinka laftigiinu u mahad celisaan oo ajendaheedu uu yahay programyadii iyo mashaariicdii bilihii ugu dambeysay oo aan ogeyn xaaladda dalku ku jiro iyo marxaladda la galay oo COVID-19 iyo lockdown-ka iyo waxyaabahan xanuunadan safmarka ay oo dhacay iyo marxaladihii lagu jiray oo xasaasiga ahaa oo xagaagii iyo ay kamid ahayd ardaydii shaqaysay oo dugsigooda u naxday oo dhaqaalaha gelisay oo kor u qaaday ayagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii waxaan kaloo ku faraxsanahay in aan saaka la igu soo dhaweeyo oo la igu sharfo oo la igu ikraamo inaan ka mid noqdo maamulka sare ee dugsiga Muntada ayadana farxad bay tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa inta kadib waxaan rabaa markaas kelmado aan badnayn in aan meeshan ka jeediyo maanta reer Burtinle waa isgaranaynaa dugsigana waan garanaynaa Muntada iskuulada ugu facaweyn ugu taariikhda dheer ugu tarbiyada iyo horumarka wanaagsan dugsiyada sare ee Burtinle ayuu ku jiraa waxaan leeyahay marka bani aadanka iyo dadku waxay horumar gaaraan markii hal wax la helo waxyaabaha ugu muhiimsan oo Burtinle ay u baahan tahay waxa weeye inuu bilowdo competition ama tartan waxbarashada inuu bilowdo insha Allah ta'ala awal uu jiri anigana saaxiibo badan oo aan isnaqaano oo maamulayaal iyo akhyaar badan baan waxaan rabaa inaan fariin u diro maanta insha Allah ta'ala haddaan ku biiray Muntada waxaan soo dhaweynayaa oo ta'kiidinayaa oo xoojinayaa tartan waxbarashada inuu furmo bankiga Amal Group waxaan soo dhaweynaynaa waxqabadka quruxda badan ee halkan laga sheegay oo ay iska kaashadeen guddiga maab guddiga waalidiinta iyo maamulka iyo waalidiinta iyo ardada Muntada runtii waxaan leenahay waa waxqabad la taaban karo oo mataqaanaa runtii lagu naaloon karo waxaan filayaa aniga runtii shakhsiyan
waxay ii tahay farxad gaar ah meel badan oo ka sheegay waxaan ka mid ahaa ardadii ka soo baxday Muntada Secondary ayaga oo aan magaalooyinka waaweyn ee Puntland uusan ka jirin iskuul la mid ah oo ay noogu yimaadeen Puntland ku martigelinay runtii intii waxbarashada jeceleed gobolada Puntland sida Garowe iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iskuulkan runtii taariikhdaas uu leeyahay waana inta halkaan fadhiday in kalaba way mataqaanaa runtii way ka dhageysan tahay waxaan leenahay dadaalka iyo horumarinta waxbarashada wadaan halka ka sii wada ilaahayna hadii la garab galo waxaan kala soo dhaweynaynaa runtii si mug iyo miisaan loo soo dhaweynaynaa iyadana maamul ku-xigeenka cusub Ustaad Khadar oo asagana runtii aan rajeynayno inuu wax badan ku soo kordhin doono insha Allah taala inta hadii aan kaga gudbo Muntada runtii maamulka iyo waa la sheegay bangiga Amal xafladan iyo xafladaha waxbarashada bangiga Amal wuxuu xiriir dawla leeyahay waxbarashada xaqiiqatan waana ujeed waad aragtaan meel kasta oo horumarka bulshada laga hayo waxa way uu taagan yahay iyo dadka hadda shaqooyinka ugu badan haya reer Muntada waa idin hambalyeynaa hambalyaan idin leenahay Khadar oo saaxiibkay hada waxa la gudoomiye ku xigeen waxayna tahay laba jibaaraysi aad baan u rajeynayaa dhamaan salaata iyo hambalyada ma wax kale loogu meena yeerane waxaan rabnaa meeshii macallimiintii hore gaarsiiyeen inaad kala qabsatid maskax cusub iyo waxbarasho cusub iyo dulqaad cusubna aad soo kordhisid inta kadib التعليم والتعلم يعني نفتين إنا وحبرنا أولادنا وحبرنا وحويان أما أننا إنا ومعلمين وذا نقولنا دتك وحبر يان نقولنا إنا أنا وحبرنا إنه أما دتك إنا وحبرنا أريد أسمع وحمر والبين لقى شقي لو بعي هاي ويا أدبان وسودوين يا إن شاء الله نوشل إنا كوذا شقينا ولو بعي هاي ودردارا وحويا ماركتي وأهرين لو بعي هاي إن لقى وذا شقيه قضب كسدحاد وحويان العلم مع الذكر إن علمي برنا علمي شريعة الإسلام سيدا إلهي سبحانه وتعالى ولا خداب لهن وحي أو ينفري أو وحوي مارتي أو نجوه جانسدي وأنا أدون أقولنا حي أن ولا جرنا قفك مركو علمي جبرته وحوي وحو جرنا يا هدف كلا جل يا أدونك الله كني حدوثا وحوي مارتي علمي جو بران وشريعة الإسلام كأوسن بران أدونك كلي أسكو شغليه وآخرة إلى أبو وحوي مشى في هذه رباطة كذا لنا يو عقاب إن شاء الله قضبك أفراد وحويان أن كدر دار ما يسين أودن بي الخدمة dadka in waxa maaragtay isku khidmeeyaan oo waayeelka meelaha yani maaragtay ku dhibaataysan iyo hooyooyinka loo samafalo kulliyadaha inuu daneynayaan 100% inuu waxaan daneynayaa kulliyadaha inuu psychology-ka ama social-ka ama maadada sayniska oo psychology-ka inuu idaatooyinka in aad 100% xoog la saaro sida gabdhaha iyo wiilashaba inuu ardayda markay wax soo bartaan guriyaha ku soo noqonayaan hadhowta aan shaqayn karin waayo 20 year jaamacadii ardayda hadda waxay soo baranayaan public health inuu hadii ilaa raale ka noqdo nutrition inuu computer science gabdho badan oo midwife gabdho badan oo soo bartay ama wiilal badan oo barteen nurse gidi howlgab oo waxay qabanayeen si jirin baa jirto hadii wax la baranayo 100% waxa hadda naga maqan Soomaali ka ahaan inuu hadda jaanis aan ku haysto ardayda secondary-ga inay xoog saarto sayniska la yiraahdo social sayniska iyo psychology-ka inuu sayniska iyo psychology-ka oo social-ka degmada Buurtinle runtii wuxuu ka mid yahay iskuulaadka ugu aqoonta badan deegaamadeena reer Puntland ma aqaan wax loo xusu waayay waxaan u malaynayaa 2 jeer buu qaado koobkii tartan iyo tacliin degmada Puntland oo dhan u qaaday 2 jeerna wuxuu galay kaalinta labaad runtii aad baan uga xumahay in la xusi waayo oo wuxuu ka mid yahay runtii waxqabadkii iyo aqoontii buu ka mid yahay ardadii iyo dadkii ka soo baxay ay ku gaareen tartan iyo tacliin aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maamulkiisa iyo mas'uuliyiintiisa dhammaantood waxaan kaloo rabaa inaan xuso iskuulkan Muntada horta waxaan ilaahay ka baryaynaa dadkii aasaasay oo ugu horeeyay Axmed Ducaale ilaahay u naxariisto
allah u naxariisto waxay ahaayeen dad aad iyo aad u qiimo badan runtii ka shaqeeyey iskuulkan iyo deegaamadan runtii ka shaqeeyey inay dadkoodu noqdaan dad aqoon iyo qiimo leh quality-ga waxbarashada inaad iska adkaysaan hadda waxaynu ku soo biiray guddoomiyahayga hore oo degmada Buurtland saaxiib nahay aad iyo aadna howlkar u ahaa haddana guddoomiye ku-xigeen inay noqday marka isagana inaa hanataan oo maaragtay inaa sii dayn baa la rabaa midda kale waxbarashada gabdhaha loo siyaadiyo waagii hore gabdhaha waxba lama bari jirin laakiin hadda ilaa iyo 98 ilaa iyo hadda waxaa socota in gabdho badan ay khudbada jeediyaan ay hadlaan waxaana arintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala mudnaanta iska leeyahay dugsiyada hoose dhexe dhammaantood waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan soo dhaweynaynaa waxqabadka ardada maab sidoo kale waxaan la shaqeynaynaa dhammaan waxbarashada waxaan soo dhaweynaynaa tartanka la hal galo waxbarasho aqoon lagu tartamo ama madax badan oo baarlamaanka meel walba ay ku jiraan wasiirada meel walba ay ku jiraan maxkamadaha oo hore u soo shaqeeyay iskuulka inaan u tahniyadayno waxqabadkiisa waxaanu leenahay oo aanu dareemaynaa iskuulku in badan buu soo shaqeynayay haddana waxaan dareemaynaa inuu ololo badan iyo horumar badan magaalada ka wado aad baan u soo dhaweynaynaa iskuul ahaan iyo maamulayaal ahaan iskuulka Sheekh Cabdikaafi baa hogaaminayay runtii waxa la dhihi karaa dadaal badan buu baxshay intuu joogay ardadiisana sanad kasta foonfoorada waxa laga fiiriyaa sambal oo sanad walba waxaan ammaan ahayn lagama soo sheego aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waana u mahadcelinaynaa sidoo kale hadduu ku soo siyaaday macallin Khadar oo hore macallin u ahaa guddoomiyihii Buurtland degmadana ahaa hadduu ku soo siyaaday hadda macallinimo ka soo baxay waxaan u malaynayaa maamulnimo dhac waxa la yiraahdaa laba maamul haday isdhacaan waa in macallin ah hadduu maamulo noqdo waa horsocod kale soo siyaaday weeye marka aad ugu mahadcelinaynaa asagana inuu wax badan qabtana waa rajaynaynaa waa in aan dareemayo inuu howlkar yahay iskuulka wax badan uu ku soo kordhin doonana waanu rajaynaynaa inahaas insha Allah ardada si isku xiran tahay qaybta maab oo la wada yaqaano oo dadaala oo mahadcelinaynaa iyagana iskuulada qayb badan oo waxa jira ardadoodii isku xirnaan iyo midna aysan lahayn waa ugu mahadcelinaynaa inay sii wadaan qodobka koowaad oo loo baahan yahay ardaygu inuu xiriyo waa inuu ogaado kuliyadan uu baranaya awood ma u leeyahay awooddaasi waxay noqonaysaa mid dhaqaale heerkiisa qofku inuu fiiriyo salahan hadaad iska jeclaatid kuliyada caafimaadka oo laga yaabo sanadkii in lagu barto $6,000 ama $5,000 reerkiin inuu laga yaabo biilkaada inayba dhib ku tahay inay soo saaraan taas isma keenayso marka qofku inuu awoodiisa dhaqaale uu eego marka uu kuliyad dooranayo waa wax meesha ku jiro waxa kale oo muhiim ah awood shakhsiyadeed qofka dabeecadiisa inuu yaqaan waa muhiim hadda waxaan la joogo madaxa marketingkan u malaynaya marketing waxa la yiraahdaa waa suuqeyn waxa looga baahan yahay qof furfuran qof kaftan badan qof dadka soo dhaweeya haddii aad tahay qof xanaaq badan kuliyadaas ma baran kadib hadhow qofka hadduu shirkad wax ka sheego waxa laga yaabaa gacan oo la tagtidba marka waa inaad awoodaada shakhsiyadeed aad wax ka taqaanaa waxa kale oo muhiim ah qofku inuu og yahay awoodiisa salahan qofka xanuun baaba hayo ilaahay uu ku riday waaba qof inuu suuxa laga yaabaa ka waran hadaa dhahday bayloodniman baranaya duuliye oo daadaha wadadii diyaaradii marnaya aad suuxdinta ay kugu dhacdo soo khatar ma ah marka qofka inuu awoodihiisa og yahay mid dhaqaale iyo mid shakhsiyadeedba waa loo baahan yahay waxa kale oo muhiim ah qofku marka uu kuliyada dooranayo inuu eego kuliyadani marka uu soo dhamaysto shaqo ma ku helayaa kuliyad shaqo wadanka kala ma tahay salahan wadanka dibadiisa baa reerkii ku direen markaas waxa aragtay dad baranayo kuliyada sida nuclearka loo sameeyo iyo waxyaalaha la xiriirta markaas Israa'iil kuliyada waa muhiim oo soo baratay hadda Soomaaliya ma kaga shaqeynaysaa nuclear oo sameynaysaa iyo Afrika xataa kaga shaqeynaysaa marka waxa loo baahan yahay kuliyada shaqadeedu inay tahay wadankaaga mid ka shaqeynayso taasna waa inaad xiriirsaa waxa kale oo muhiim ah qofka kuliyada marka uu dooranayo inuu eego kuliyadani yaani waxa ay ka kooban tahay maadooyinka kuliyadan ku dhex jiro maadooyinka aad xiseen jiray iyo kuwa ku ficneed ma yihiin waxa laga yaabaa dugsi sare marka aad joogtay xisaabta iyo fiisiska inaad nabcayd inaad dhici jiray maadooyinkaas oo macquul hadaa dhahday ka hor engineering baan baranaya xisaab iyo fiisiks ka kooban isagoo dhan waxa dhacaysa marka bil wadid inaad dhahday ruuxan maxay ahayd bilada mid kale u boodid marka iyana inaad qiimeysid waa wax meesha ku jiro waxa kale oo qofka looga baahan yahay in uu qiimeeyo kuliyada uu baranayo inuu dad weydiiyo ama uu jaamacad intuu tago soo fiiriyo agabka ay hayso kuliyadu haddii la helo tartan waxbarasho haddii la helo
waxaa imaanaya in qolo walbaba ay sida maanta mudada ay ku dhaqaaqdo ay qolo walba ay samayso oo ayagu ay isku tashato oo ay samayso iskoolaadkooda ay hagaajistaan oo ay sameeyaan waxa weeye inta in ka dhow iyo in ka sii badan ay sameeyaan marka ka bacdi waxaan helaynaa in aan u noqono hormuud Puntland oo dhan aan u noqono haddaan nahay degmada Buurtile ka waxbarashada waxaan kaloo rabaa in aan meeshaan si guud uga sheego maamulihii ay noo soo gudbiyeen maamulka xogeenkeena loo soo gudbiyey oo maamulka iskoolka guddiga CC-da gudoomiyaha guddiga CC-da ay noo soo gudbiyeen annagoo fiirinay macalinkaasi khibradiisa iyo tayadiisa ka wasaaradda waxbarasho ahaan maamulka waa aqbalna boroseeska ka dhiman oo xagga wasaaradda waxbarashada waa la marsiin doonaa waxaan u rajeynayaa maamulahaas xilkaas loo dhiibay inuu ka soo bixi doono haddii alla idmo iskoolkaasna uu soo gaari doono heerka hore ahaa iyo mid ka badan